Maxay yihiin habka ugu fiican ee aad ku horumarin karto garaadkaaga? Weydiintan waxaynu kaga warcelinaynaa 4 cashar oo ina barayo Albert Einstein oo ah mid ka mid ah dadkii ugu garaadka badnaa ee sooyaalka soo mara. Waxay ugu yeedhaan aqligii ugu weynaa ee dunida soo mara. 1. Hal-abuurka iyo malawaalka. Wuxuu yidhi Albert Einstein, calaamada dhabta ah ee garaadnimadu ma ahan aqoonta, laakiin waa malawaalka. Marka aynu weydiino sidee carruurteena uga dhigi karnaa kuwo garaad badan, bal aynu soo xigano hadalkiisii ahaa, haddii aad doonayso in carruurtaadu noqdaan kuwo garaad badan, u akhri sheeko berleyda. Haddii aad rabto inay noqdaan kuwo intaa kasii garaad badan, u akhri sheeko berleyda. Sheeko berleydu waa sheekooyin malawaal ah oo ku saabsan waxyaalo abuuris dahsoon oo abuuris sare leh sida jinka, shaydaanka iyo ruuxaanta. Sidee loo horumariyaa hal-abuurka? Raac xiisahaaga, samee qalad, horumari muruqa fikradaada, maalin kasta tababar ku samee. Malawaalku waa awood. 2. Adkaysi la'aan waa qiimo la'aan. Wuxuu yidhi Albert Einstein, arrintu ma ahan inaan anigu maskax badanahay, kaliya waa in dhibaatooyinka joogto u ahaado waqti dheer. Wuxuu joogto u noqdaa si uu u xalliyo dhibaatooyinka. Geesinimaduna waa in yar oo aad cagaha dhulka ku hayso. Sidee loo horumariyaa adkaysiga? Diiradda saar dhibta, ha isdhiibin. Diyaar u ahow inaad qalad samayso. Aqoontu waxay ka timaadaa waayo-aragnimada iyo dhibaatooyinka nolosha. 3. Naf ogaal. Inaad taqaano waxyaabaha aad ku fiican tahay iyo waxyaabaha aad ku liidato. Albert Einstein wuxuu yidhi, qof walba waa cabqari. Haddiise aad kalluunka ku qiimaysid awooddiisa geedo fulka, wuxuu noloshiisa oo idinku qaadanayaa isagoo aaminsan inuu duqan yahay. Sidee loo horumariyaa naf ogaalka? Ha filan natiijo ka duwan. Tusaale, haddii aanad ku fiicnayn xisaabta, raadi fursad kale. Qof walba ma aha orodyahan heerka Olombikada ugu sarreeya. Diyaar u ahow inaad qalad samayso, laakiin degdeg u sax qaladka. 4. Awoodda aad u leedahay isbeddel. Albert Einstein halkudhigiisii waxaa ka mid ahaa qiyaasta aqligu waa awoodda isbeddelka. Sidee wax loo beddelaa? Ku bilow dhammaadka maskaxda, qor natiijada soo baxaysa, wax ka baro dadka ku fiican, raadi tababare ama la taliye, hore kuu riixa ama kuu haga.